Sheekh Doni Kole sababtoo maxaa yeelay haddaanay uurka weedhu kaa jirin waa mid ay noqoto mid cadowgaaga meesha ku jooga ay dhiirigelin u tahay laabtana ay u joogto ku faana midabyadiina ayay yidhaahdeen inamadii Faransiis iyo taageerayaashoodu laakiin qulubta kama yahayn waxayse qulubta ka ahayd jamaahiirtii mayalka adkaa ee iyagoo laga tiro badan yahay misana wixii tiro beel Faransiis meesha sheekhteen le Messiga ahaa ku aamusiyay fooridooda habeen PSG la yiri oo khiifiq wax soqtiye ilime baxa taga nabadgeliyo sidaana kaga hada championka dhamac baa ka baxayse Borussia Dortmund inay yihiin halgamayaal dhabaayay iscadeeyeen Paris Saint-Germain Bagdad Princess ayaa harageeda mar kale lagu tuntay Mbappé Dembélé Pelé Basiyo Marcos la isku laday intaba ilaa la wasaragi haragooda ayaa lagu tuntay maryaha laga calaashaday maqluubkana waa loo rogay habeenaanay mahadin ayay ahayd kooxdii joogtay caasimadda Paris iyo sarta dheer oo lagu dhex tumay iyadoo ay yihiin Faransiis oo dhami Borussia Dortmund ayaana iska xaadirisay finalka tartanka Champions League kadib markii ay labadii kulan ee semifinalka Champions League hore iyo gadaal reef Ismaaciil Lambertuga ay hore ugu baxday oo dib ugu baxday Borussia Dortmund ayaa isbartay PSG sida looga shaqeeyo koox ahaan aanay shakhsiyaadka magaca leh guul ku keeni karin waxaana goolka madiga kooxdani Haruda isagu sharafteeda kor ugu qaaday saddexda dhibcoodna yiri sidii habeenkii hore oo kale cariga daba kaalay hal midh baan kugu baqtiyay waxa la yiri ayaad iga haysaaye baliga daba kaalay waa Hamalis oo madax ku qabtay kubad koorna ahayd iska daada yarta meesha u joogtay waxa loo diray duqaytidoo la yiri idinka ayaanu idin imaamadnay inaad saddexda dhibcood gacantiina kaga soo qaadaan lugtii hore labada kooxood ee toddobaadkii hore ayaa ku soo dhamaatay hal iyo eber ay guushi ku raacday Borussia Dortmund oo markaa tiri seekhteen Messi oo markaasi garoonkeeda joogtay wada Haruda waxa libinteeda ay ku xaqiijisay hab difaac adag iyo weerar rogaal celisa oo ay ka sameeyeen garoonka Bagdad Princess oo ay lugta labaad marti ugu ahaayeen inamada sarta dheer ku abtirsaday PSG Borussia Dortmund ayaa finalka oo ka dhici doona garoonka Wembley Stadium waxay la ciyaari doontaa Real iyo Bayern midkooda soo baxa kulanka Arbacada loo idman yahay iyadoo finalka la dheeli doono 1 June ciyaartan inteeda badan ay maamulayso la yiri kubadda iska hayso sawirana ku gal Paris Saint-Germain oo afar jeer biraha garaacday habeen kale birtu tiri wali hadda qulubta Jarmal baan ka ahay iyo Almanis ee fahan Faransiis oo jujub waxba lagu ma keenay isla markaana iska lumisay fursado badan ayaa waxay Borussia Dortmund ugu gudubtay finalka Champions League ee ugu dambeysay sanadkii 2013 oo ay Bayern Munich waqtigaasi ka qaaday koobka qaybta hore ee ciyaarta gool la'aan ku dhamaatay ayaa waxa PSG fursad dahabi ahayd ka lumiyay xidiga Emery oo gool koortiisa ka helay kubadaan ciidina ka difaacin balse uu birta ka jaray daqiiqadii 74aad isla markaana banaanka uga baxday waa marka birtu ku leedahay waxaan raaci doonaa oo qulubtaydu la jirtaa halyeeyada xafidaada adag 3 daqiiqadood kadib ayaa koorna uu soo tuuray xidiga Brand waxa madax awood badan ku qabtay duqa kooxda halyeeyga duqana ah ee kooxda Borussia Dortmund ee Matthias Hummels oo shabaqa ku hubsaday isla markaana natiijada ciyaarta ka dhigay 1-0 marka lagu daro lugtii horena noqonaysa 2-0 Nuno Mendes ayaa mar kale uu nasiib ku diiday oo birtagay kaga dhacday kubadu goolka ku toogtay waxa taa goolhayaha u dhaafiyay waxa uu wadnuhu waqtigaasi yara gariiray jamaahiirta Borussia Dortmund daqiiqadii 65aad markaas oo Dembele ku dhacay xerada ganaaxa balse Faria garsoore Danilo Orsato ayaa isku raacay inuu qaladkan ka ahaa banaanka garoonka PSG oo aan weligeed ku guuleysanin tartanka Champions League isla markaana sanadkii 2020 u gudubtay finalka oo Bayern Munich sababteeda ay u weyday koobkan ayaa waxay sidoo kale birta garaacday daqiiqadii 88aad oo Mbappé iyo xidiga Fatinha kubada ay goolhayaha dhaafiyeen ay birtu tiriyaan 12 ku ah oo qulubta ka wato Almaaniya iyo Jarmalka miyaadi lowday Asber Le Messi finalka oo maalinimada Sabtida June 1 2024 lagu ciyaarayo garoonka Wembley ayaa Borussia Dortmund ay sugi doontaa Bayern iyo Real midkooda soo gudba iyadoo lugtii hore labadaasi kooxoodna ay ku kala baxeen 2-2 Borussia ayaa ku riyoonaysa in markii labaad ay ku guuleysato tartanka Champions League oo sanadkii 1997 ay ku guuleysteen iyagoo finalkiina 3-1 kaga adkaaday Juventus oo waqtigaasi dhibana ahayd waxaanay ka dhigan tahay mar kale in la arki karo laba kooxood oo Jarmal ah oo Wembley ku wada ciyaaraya haddii ay hore u ahaayeen Borussia iyo Bayern oo waqtigan ay Bayern qaatay
laakiin mar kale Bayern Real ayay la ciyaaraysaa. markan ma waxay noqon doontaa in kooxda reer Spain ay isxaadiriso oo iyadana aanaynu arag wax ka yiraahda hush iyo hid iyo sitatak iyo kor u baxtoona final ba hadday timaado miya Borussia lagu soo fasaxi doonaa waynu eegi oo waa loo jeegi doonaa bal kulanka aan isdul taagno kooxda PSG 30 shoot ayay goolka isku dayday inay toogato 5 ayay ku aadisay halka Borussia Dortmund 7 kubadood oo kaliya ay isku dayday kadibna 3 ay ku aadisay kubad haysashada PSG horeba waanu sheego PSG Borussia waxay ku tiri ku raaxayso sawirana ku gal 70% ayay haysatay halka Borussia 30% haysatay 30 kana uu ka soo dhex baxay madaxii duqaytidu ay shabaqa ku hubsatay 659 baas ayay samaysay kooxda PSG 589 baasna waa ay saxday 290 baasan sameeyay anigoo Borussia bay tiri 228 ayaan saxay midi waa uu ka yimi saddexdii dhibcood wax badani faa'iido mararka qaar ma keenaan wax yarba faa'iido keena faawaladu waa 8 koornayaasha PSG 12 bay heshay halka Borussia 4 ka heshay afarteediina mid kamid ah duqaytida loo wakiishay shabaqa ku duudo waanay dhacday waana waxaynu aragnay maxaa kaloo dhacay Jadon Sancho yimiya finalka waxay wadna garaac iyo seexan waa ay ku ridaysaa tababari bilaatinta ay shadaadinta maamulaya Erik ten Hag season-ka oo dhan xidigani 3 kulan oo kaliya ayuu intii hore u soo ciyaaray kooxda Man United hadda 18 kulan oo u ciyaaraya kooxda Borussia Dortmund finalka ayuu la joogaa bandhigiisuna waa high class 38 taabasho 22 baas 3 darablin 2 cross فهمت علي شيء كله كلام يا أخي سانشو أبو تريكو استوديو فدي محيي لهافكي سانشو 45 دقيقة ayaa ku haray oo aad hurdada kaga qaadi karto Erik ten Hag iyo anaasirti kuna tusi karto waxa tahay sababtoo maxaa yeelay aad final tagto waxay seexan waa u noqonaysaa iyo saamaleyl nimankii iyaga ahaa ee bilaatintu ugu horeeyay ya hadda ma ila socotaa haliyeyga ay ku faanaysay kooxda PSG ee Mbappe natiijada uu garoonka ka helay muu noqon mid ay mahadiyaan 51 taabasho 28 baa 3 darablin iyo 5 shoot 4 cross iyo 3 darbo oo goolka ku toogtay oo ku aadiyay haye wixii midkoodna kama mira dhalin waa inaad haliyeyadaadu noqdaan samata bixiyay farsamooyin ku go'aamiyeen natiijada qaarkeed habeenada xaalku sidan oo kale wadag yahay laakiin maxay kaaga taala qulubtoodaba may jirin weerihii lagu soo qortay garoonka oo waxay qulub ka turjumayeen weerahaasina qulubta dhabta oo ahay taageerayaasha kooxda Borussia Dortmund ee tirada yaraa ee misana boqolaalkii kale aamusiye Sheikh de Nicole sababtoo maxaa yeelay Sheikh de Nicole marka lagu leeyahay waan ku faanaa midabyada iyagu waa casaan iyo Soomaha blue nimankan odayaasha ah ee PSG waxba kama jirin laakiin haruuda iyo madowgu waa ka dhab oo way ku faanaan waxay ku soo sameeyeen homekoodii baynu ognahay inay yihiin taageerayaasha ugu xamaasada badanna hadal kaaga ma jiro oo waynu ognahay Borussia Dortmund wax kasta way samaysay habeenay haraga kala diiratay xidigii kooxda PSG habeen cidiye ku dagaalanku xalaalaha habeen maryaha laga calaashaday habeen Mbappe la yiri sidii inaad hurdo ka soo toostay indhaha ka gur xabachada ayay ahayd sidii la doonaa loo dakeeyay sidii la doonaa loo difaacday sidii la doonaa ayaa ku bedelaysaga fogeeyay sidii la doonaa ayaa taageerayaashooda ay waqti ula qaateen taageerayaashu iyagoo sii jeeda ayay daawanayeen maxaad ka leedahay adigu maxaad ka bedeli kartaa waa waxba kama bedeli kartid markani oo kale kooxda noocaas oo kale waxa la yaa sootiye sababtoo maxaa yeelay inay iska baxaan oo tagaan ayaa uga filroon ceebtan PSG waa u dhalasho ayaan filayaa iyo caado soo jireena maxaa yeelay way ka dhiidhii lahaayeen waxaan sanad kasta ku dhacaya maysa dhicin inay ka dhiidhiyaan oo waa naga arkayna waxa ku dhacay intaasi kadib Abu Trika oo studio-ga Bein Sports ku sugnaa waqtigaas uu cara hadlay waxaanu ku leeyahay PSG marka xilli ciyaareed ku dhamaado waanu ballansanaynaa waxaanu noogu baxaynaa anagoo ah shaqaalaha Bein Sports haddii PSG aan la ciyaarno waxaanu kadib iyagana aan wacan doonaa Man United haddii Man United aanu ka badino waxaanu dawxa qadar ku ballansan doonaa Barcelona shaafina sidoo kale waan hayaa xiriirkiisa taana idinaga hor istaagi mayso
sababtoo maxaa yeelay garoomadii ayay sidan ku yihiin marka weyn anagoo duqaytidii kubadda ka fadhiisatay iminka taxliilka isugu ururaya weynaanu ka adeeganaa dii oo tusnaa waxani kubaddu inay tahay xirfadda inaad si caqliyana aad uga shaqayso yaa bahashu dadkeedii bay u baahan tahay dadkeedii ayay bahashu u baahan tahay Borussia Dortmund waxaanu leenahay tudnos felicitation sababtoo maxaa yeelay way u qalmaan kun iyo kow jeer hambalyo mabruuk nooc kasta shaqadii aad qabateenna merci beaucoup maxaa yeelay waad mudantiin intaayay in ka badan PSG bye bye sotie oo khiifiqwakh ayaanu leenahay sidoo kale nabadgelyo iska baxawn yaa sotie marka xubintu waa kariskiya kala haadintii anigu waxaan ahay maxamed tirike karsashadaydu intaynay ku ekaatay ma jecleena waan sii wadi lahaa waqtigaan igu saamaxaynin intaynu xubintan midda xigta ku kulmi doonna inta ka horraysa war meel fog gaadhsiiya laygtan ugu cumaamada falowda iska taabta aragtidaaduna halkaa hoose noogu reeb intaynu midda xigta ku kulmi doonno sidaa yaa amaana allah Smart Dental Clinical xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay kuu samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed adeegyada qiimo dhimista lagugu sameeyana waxaa ka mid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo keliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta dabdamiska inta aanad gaarin waxay ka soo